السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maal Maxmuud cashkan waxaynu ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad steward waxa la yiraahdaa tusaale keeno diyaaradaha ama diyaarad markaad ku safraysid dad baa ka dhex shaqeeya dhalinyaro wiilal iyo gabdho bale gabdho waa u badnaadeen dadkay biyaha u geeyaan cunada u geeyaan qofkii caawimaad qabay caawiyaan qofkii musqusha in la tusarabay tusaan dadkaas waxa la yiraahdaa flight attendant steward waa la yiraahdaa iyaga marka qofka diyaaradda ama markabka dhex shaqeeya dadka caawiyo ayaa la yiraahdaa steward ereyga labaad label waxa la yiraahdaa for example haddii aad cabitaan gadatid ama taleefan aad soo gadatid waraaq yar ku dhagan ama gadget wuxuu doono waraaqdaas yar waxaa ku qoran macluumaadka ama qaabka aad u isticmaal lahayd for example boorsadaas ama qaabka aad u isticmaal lahayd alaabtaas aad soo gadat waraaqdaas yarta ayaa la yiraahdaa label ereyga saddexaad leaflet iyadana waa waraaq yar oo macluumaad ku qoran yihiin tusaale qof baa wuxuu xaysiinayaa product uu soo saaray waraaq yar buu dadku u qaybiyaa oo ku qoran yihiin qaabkee loo soo saaray macluumaadkaas productgaas maxaa ku jira productgaas qaabkee loo isticmaalaa iyo walxaas oo dhan waraaqahaas yarka ee daabacan ee information ku siinaya la yiraahdaa leaflet flyer mar qaar waa la yiraahdaa pamphlet waa la yiraahdaa buug yar yes the leaflet explains the rules ama she gave me a leaflet about the event waxay si waraaq yar way ku qoran yihiin qaabka event uu dhici doonto manifest waa to show to sit for example hadaa ku dhaho his anger manifested in his voice codkiisa ayaa laga garan karay xanaaqiis erey shanaad medal dadka markay tartamaan qofkii numberka koowaad galo bahal yar oo bira qorta loo suro oo dahab ah kan labaadna bronze kan saddexaadna copper zinc I don't know something like that maya kan koowaad waa gold kan labaad waa silver kan saddexaad wuxuu yahay bronze birahaas yar qofka markuu number fiican galo ama orod ha ahaato ama fair ha ahaato ayaa la yiraahdaa medal yes ereyga lixaad morphine waa daawo xanuun baabiya qofka lagu daaweeyaa si xanuunka looga jabiyo daawooyin marka xanuun baabiya waxaa jira kasii xoog badan morphine taasaa ka mid ah opioid waa la yiraahdaa qaarkood nausea labadaba waa labalabo qof markuu labalaboonayo oo matag soo haya la yiraahdaa nausea for example I'm feeling nauseated waan labalaboonaya news anchor waa qofka studioga fadhiya warbaahinta warka soo gudbiya yes dadna meelaha kale ka soo waramaan qofna studioga shirkadaas fadhiya ama BBC-da ama VOA-da ama Citizen Kenya amal news anchor baa la yiraahdaa yes qofka warbaahinta soo gudbiya erey sagaalaad paraglider waa qof isticmaala parachute waxaa jirta parachute la yiraahdo qofka diyaaradda ka soo boodo hawada uu saa ugu dul sabeyn karo qofka noocaas ama ciyaaraha sameeyo ama qaabkaas ku duulaya ayaa la yiraahdaa paraglider ereyga tobanaad u dambeeyo placebo is a very funny medicine daawo waxaa jirto sare qof baa ku imaanayo xanuun iyo dhibaato ku sheeganaya haddii dhakhtar aad tahay si fiirisanna qofkaas xanuunku waa maskaxdiisa wax xanuun email laga hayo ma jirto sare marka waxaad siinaysaa daawo yar oo placebo la yiraahdo ama biyaha ka agsanaato ama wax yar oo dhinac ha ahaato waxaad leedahay daawadan haddaad cuntid dhabarka ku fiicnaanayo lugaha ku fiicnaanayo qofka hadduu soo laqadhootu kuu soo laabanayo waxaa ku leeyahay doctor daawadii waan mahdi xaqiiqatan haddaad fiirisan waxay iska ahayd dhinac camal mise daawo yar oo biyo laga hagaajiyo daawooyinka noocaas ayaa la yiraahdaa placebo yes inta badan bukaamada loo isticmaala yani it doesn't have a real medicine wax daawo ay ka hagaagsanta ma waska kaniini ama qof baa wuxuu ku leeyahay niyo madaxa aad ay kala jaban maalmaha waska shaksanahay biyo ugu xir faleembo biyo caadi baad ku xiraysaa faleembooyinkan kale maxay ahayd dadka lagu daaweeyo kuma xiraysid to biyo hay'ad marka wuxuu leeyahay waa caafimaad haddii aad fiirisan wax daawo oo qofka la siiyo ma jirto just waxa la siiyo placebo yes so we can say some patients improve by using a placebo ashka intaas ayuu ku yahay keep learning and have a good day bye bye